Soomaali Sheekh Saciid ku soo dhaw markale barnaamijka ugu horeyntii waxaan jeclaa inaad bal taariikhdaada maadaama Soomaalida in badan oo kamid ah in aad ku aqoonin waa inta dabcan waaweyn ama wadanka ku haray ina taariikhdaada wax yar noo faahfaahayso بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxay aniga kan iyo sharaf in dadka Soomaaliyeed aan maanta la hadlo anoo isticmaalayo wasiilad Somali Channel dadka Soomaaliyeed inta badan waxay moodaan inaan af Soomaaliga ku hadal inaan af Soomaaliga aqoonin meelo fara badan waaba la tuhmaa xirda horta ninka af Soomaaliga ma ku xaman karaan sawayno iska eegna ninka in anigu waxaan ku dhashay Soomaaliya waxaan ku dhashay tuulo yar oo hawdka ku taala oo la yiraahdo Gocondhaale in marka inta badan markaanu dadka reer Jabuutiga aan u muxaadareynayo ama xitaa dad fara badan oo xamar ka yimi in isma afahmno way intayda yari waa in yaro geel jir ah way miibaan ku dhalanay miibaan af Soomaaliga ka soo qaadanay marka intaan haysta waa in yaro intii geel jiraha geela lagu raaci jiray marka midhaha aan leeyahay iyo markan word tuuro amaan ma soo qabsado dad fara badan baa laga yaabaa inay leeyihiin waniyo taloma Ingiriisi wax isku qaldaya af Soomaali in markaan war tuulaas ku dhashay tuulada markii aan ku dhashayna Ilaahay wuxuu qadiray marka anoo ilman yar inay hooyo dhimato oo marka in anako caruuro biya shan jir iyo wax u dhow aniga iyo afar yar baan ahayn marka waxa la yiri balde cidi u tala kala qaatan caruurta marka aniga inaan waxaan loo diray Sacuudiga halkan markaan Carabidan ku bartay iskuulkana ka bilaabay in markii ay dagaaladu dhaceen anoo marka form 8 waxa marka iskuulkiga harsan yahay adigu ilaa 4 sano 5 sanadood baa iskuulkiga harsanaa ayay dagaaladii dhaceen in Soomaalida marka la eriyaday Soomaalidii Sacuudiga deganeeyde kuwii sharciga kulaha iyo kuwii iqaamada kulaha iyo kuwii tuugada ku joogayba marka waxaanu gaarnay qaraar oo reerku waxay qaraar gaadeen inaanu ilmo yara qurbaha la diro waxa la yiri in de orodo bal dhaqaaq wadankii meel lagu noqdaa ma jiro oo waxay hayd waan garanayaayo 1989 bay November 27 marka diyaarad baa la saaray diyaaradii markii la saaray in Suuriyan joogay week ka bacdina waxaan ku degay ka dhoofay Dimashq ilaa Toronto waxaan xasuusanayo oo runtii ka yaabiyay ninkii immigration officer-ka u ahaa meesha joogay inuu arkay ilmo yaro kaligiis ka socda marka wuxuu yiri gabadh baahay waxay igu tiri yaa kula socda marka waxaan ku yiri ciidana ilama socoto marka goor dambe ayaan soo galay magaalada Toronto Canada ku taala marka wadanka Canada inaan maqlay mooyaane xitaa caalamkoodu caynku uu eegyahay in dadka degani waxay yihiin macadaanba inta soo keenay laakiin kalarka wadanka iyo caalanka wadanka iyo kalarkiisa iyo ma hubo mana garanayo markaas subax in Soomaaliyana taano ilmo yaran ka imi Sacuudigana reerkii aan la joogay reer taabiciyad labay ahaayeen oo sharciga leh hadii goor waxa caada marka dadkii Sacuudiyiinta Soomaalida ahayd inay Soomaalida kale iska fogeeyaan anaga Sacuudiyiin baanu nahay in arrimo yar oo ay qarqarinayeen meesha ay ku jirto annakii marka Soomaalida wana laga fogay waxaan ugu dhacay marka af Soomaaligi intii yareeda aanu de aanu ka baranay miyiga mooyaane horta maanu mu kobcin oo af Soomaaligi de musiibadanino kelmado waaweyn iyo mahmaha waaweyn iyo waxde dad ku hadlaan marka maanu garanaynin Carabiga la qabsan marka anigu xitaa markaan la hadlay dadka af Carabeedka ayaan marka ku horeysiiyay in maskaxdayda ku sii turjumo marka hadhoona ama Ingiriisi aanu bedelo ama Soomaali u bedelo marka wax la qorayo waa in Carabiga marka hore ku qora hadhooban marka anigu badasha
luuqadii markaa asaasiga ahayd waxay noo noqotay luuqadii dee aanu kusoo lagu soo ababiyey eena lagu soo koriyey waa xaqiiqadii waxaa odhan karaa waa luuqadiina lagu canqariyey waa anagu dee wax kale maanu garanayn markii aan tegay Canada soomaaligii intii yaradaan sii hayana dee in yar buu noqdayoo runtii iska aasan carabidina ciidanagulama hadlaynin Canada markaanu gallayna ingiriis mana loo bilaa marka gabadhii waxay igu tiri orado caawa meel baanu ku geynaynaa iska seexo berito ayaanu ku keenaynaa qof Soomaaliyeed oo ku turjuma cilada marka waxay noqotay aniga iyo ninkii Soomaaliga ahaa ciidina kala turjumi lahayd ilaa labadii nin oo isfaham waayay marka ninkii baan Soomaaligii marka waxaan ku wari war ma Soomaali baat waana la sugaya marka moogtay marka asaas iyagu wuxuu waxaan ahay Jamaican af Soomaaliga bartay waan rumaysan dacadliga lagu ku ciyaaray nin Jamaican af Soomaaliga bartay ayaan ahaa buu yiri markaasa waxa iga yaabiyey runtii markii dambe way Soomaalidu ka sii fogaad waxa iga yaabiyey markii aan tagay ka dhoofay Sacuudiga war xagad maqaxi aan oo joogo meel magaalada la yiraahdo Jidda ayaan xagga tagay sanin bay buu yiri Canada ku socdo Allah tallaay buu waa nin reer hebela Canada joogay numberkiisa hoob buu yiri number marka ay qoran numberka yar baad haysataa halka duluc ayaan gashay ma sha Allah waxaan sii kaalumi sax numberkiiba la soo baxay markan Canada ka soo degay lacag $9 baan haysan geebigeedo waan la soo dego numberkiibaan mid meesha joogay ii sarrifayo 4 quarter buu siiyo 4 tiibaan ku dhuftay ninkii waan xasuusan wadi hello telefoonka qaaday war hebel baa hebel ma tahay hebel oo halka joogo tu magaalada joogo oo maqaxida joogo baa numberkaaga isoo siiyay haye wuxuu markaa ninkana wuu i garanay inaan iska cali cabdo aan ahay oo aanan dhaqan kala garanaynin waan Soomaali waa adag yahay oo reerahan iyo waxaana aanan kala aqoonin wuxuu igu qoray ninku waa adigu reer hebel baatay Saciido صح ninkana reer hebel ma laakiin waa isu dhowdiin waa day waa reeraha صح marka anigu waxaan u haystaa nin qurba jooga baan ahay Sacuudigana waxa nidaam baan lahayno xitaa guriyo ayaa dadka dadweynaha loo kireen jiray oo kaboolayaasha la oran jiray ninka wadanka soo galay Sacuudiga ee Soomaaliya ka yimaadee bilaa shaqada ee afki aan garanaynin lacag haysanin war guriga hal geeyo ayaa la oran jiray dadweynaha waa kaboolayaasha la oran jiray kabola ku tolama kaboole laakiin kaboole uu bixiyeeno marka guriga soo gashid halka saarada kaba farabadan kabadan baa taxnaan jiray waxaan isla marka mabda waa sidii oo Canada marka tagtid kaboolayaashii ma u tagi doontaa inta lagu meelaynayo ninkii baan ku dhuftay war hebel nin reer hebel baan haybaanay marka warqadu way qorantay iminka wadanka soo galay deebal soo doona wuxuu igu jawaabay anigu reer hebel ma yihiin oo reerihiina doono waa markii horta qabiilan ka qoostay markan qabiilka oo kaadiye baashan qabiilka horta ma hagaagsana waayo daado ilma yara oo xitaa Sacuudiga waxa jira waxaan rado ibtidaa'iyada iyo waxaan rado mutawassit iyo sanawiyada high schoolki maan galinba mutawassidina sanad baan ka qaatay laba sanad baa laga soo bootiyay runtii ninkan oo kan igu yiri Jamaican af Soomaali bartabaanay كان له حكومة كي ترجمة له حكومة جمعة مريم صومالي برتي كوا عتنا حكومة ريرين مير كنا ريرين ميه ورميشن عجيب كوام حي وضنا عجيب يعني شو وإن مركي دقالت عينه والله يسحيستا واحد عدي مركا إنما موسية نمبر كود يحول إنما لا سوى حسوتي هنا دونو إنما دي بانقراعي لبا إنه حسن لا يلاحظه أي إيمي إلى خير كسي يسيونا كسب بيسوق دويا ورد قبل يمجرش وغيابت المها ير ماشي كلي صعدة لبا دنا وإيمادين صار نقوم محكمة بعد لا تبع يجري لبا دي بنين بإيمي قرقي بيدتشين كبعد ما كيدتشين محكمة دي مركا أن صار نقضي مدق هبون ويهذا مركا تدك وحي سجان سنة ضيو أيا lawyer kii aniga marka la qabtay
iyo kii maxkamadda ka socday aan garanaya oday talyaani buu ahaa aniga looyarkaygiyo cad oo nin cadnada suurad telefisyon man ka arki jir marka odaygiiba halkaas soo farso naga raaliho baa laygu yahay halkaas la isla yar tagay way wada hadleen way soo noqdeen 5 minute ayaan fadhiyaa waxaan qarar waxaanu gaadhnay ilmo yar baa tahay oo biyo ah ana runtii waan sheegay waxaan ku iri Soomaaliya waan ku dhashay Sacuudiga intaasaan joogay Soomaalida waxa iga weydiin ma garan maayo qarar baanu gaadhnay bay leedahay marka inaanu sharci ku siino orda iska tag sharcigii baa warqad baa leeyahay waan soo noqday waxaan magaaladan weyni igu weynaatay runtii tuulo yar ayaan tagay tuulo yar ayaan Canada kamida oo Canada kamida magaceeda maxsan ka dhahay ha Welland baa la dhahaa Welland Ontario Welland markii aan tagay horta Welland madoobi ma joogo ana ka madoob meesha wala Jamaican xitaa ma joogo waa wada beerale masha Allah mala 45,000 oo qof baa degan magaalada waa wada cadaan iskuulka masxaadiri waxa ku fiican Canada markaad qaxoonti tahay soo gashay wax yaro caayar baa lagu qoraya aydi baan soo qaatay meel baan tagay nin baa soo kaxaystay ka soo kaxaystay hortan war aniga aqal ay kireen maayo aqal ii kiray aqalkii buu ii kireeyay had meesha ka qabanaysa halka ma iska degay ma kaliga halkan may iskuulkii baan tagay iskuulkii waan soo qoray show iskuulkani waa Catholic iskuul caadi ma aha anigu waxaan moodayay iskuul public ah waan eegay iskuulka xaafadda igu dhow waa ka wallahi kaasad u lugayn karaysaa baan isiriyay kiiban soo qoray principal ka bari abaame uu dhintay hooyada meeday way dhimatay meesha wala ya kula jooga cidna adeeraysa ku ka meesha baa loo sii yeerayo aniga markaan waxay ka dhaadhacsan wadaa nagu dhigi jiray Carabaha Yahuudda iyo Kristanka dad xun weeyo cadaawad bay noo hayaano waa dad marka waan soo ururinaya iskuulka marka uu soo dhaweey waxa la igu ballamiyay marka fatherki kaniisada ninkii iskuulku waa Catholic oday marka baadariya meesha jooga sax odaygan baadari dad subaxdii wuu na tukiyaa waxaan ka soo koranaya markaas in the name of the aan ka soo waan la tukinaya waan wada kacayna meesha baa lagu ballamiyay odaygii marka lunch time ka asagan u taga marka dhowr cisho taga ku anigu librarians waxaan iska tagaya cafeteria ayaa waxa iskuulku 1200 arday ku jira iskuul weyn weey masha cafeteria mar Allah ya marka laga soo baxo ayaa miiskaygi sidii Kacbada ayaa sida aniga lagu dawaafay where are you from Somalia where is Somalia carruurtana waa carruur beeralaya beerta aabahood ku dhasheen beerahaas ku dhasheen samarkiina wax ka shaqeeyaan beeraha inta kalena iskuulkaas ka dhigtaan adduunkan way ka xilxidayeen Mareykan bay ka yaqaanaan where is Somalia Africa where in Africa san maapka soo qaadayo dadkii markaa Soomaaliya u sharax qaarba kooniya ma ku taaban karaa inta sansaha marka ma waxay fiirinayaan in kalarkaaga in waxaan soo goorayo gacantada soo raacay soo raacay waa lagu taaban ajiib dad baa oranaya war waxaan TV-ga waa laga arkaa qofna kala day way arkeen meelaha marmaraya ama laakiin qof ardayo meeshii la joogo ee kii ugu horeeyay madooba dhex fadhiisan noqday sanad walba intaasoo arday baa ka baxday iskuulka waan wada eega gidaarada wada eega ku soo wareeyeen qof madoob kuma jiro luqadii Soomaaliga halkii bay wali igu aasantay Carabigaygi waa tan imika Ingiriisi baa de waan ku subaxdii waan ku hadlaya galabtii waan ku hadlaya habeenkii waan ku seexdaa saddexda luqadood marka idameel buu ii yaala mar dambe marka aan dadkii soo dhex galay
markii high schoolkana dhameeyey aan markaa reer yeeshay aan ayaa la yidhi war ninkan waaba Soomaali show markaas aad kaniisadda tagto oo Catholic-as aad iskuul ahaan meesha u tagto goormaa ogaatay in waxaan ay Catholic tahay oo iskuul fiican aysan ahayn horta runtii haddaan runta kuu sheego shakiba diinta islaamka laga geliyay anigaaba diinta inaan ka baxo ku dhawaaday bismillah waayo in doorta ninkan igu horreeyay waddanka markii aan soo galay waa kii war qolomaad anu reerka isku reermanihin marka waan booday ninkan waa kale anigu Jamaican baba ninkan Soomaaliga ila eka waan sii diday markaa anoo taasi igu yaro qofulan tahay ayaa ayagii markaa soo dhaweyn fiican aad ka heshay si wanaagsan ka isoo dhaweeyeen ayaa subaxda ninkan baadariga baa lagu ballamiyay markan ka soo baxay iskuulkana kaniisad gurigayga ku agtaala ayaa lagu ballamiyo kaniisad ay qaadaba halkaas waxa lagu soo akhriyaa marka ma tagayna guriga lagu yimaada saa lagu akhriyaa markii baadariga lagu ballamiyay adiga iyo baadarigaas maxaa idin dhex maray oo sheeko ama baadariga waanu sheekaysan jir aad baan u jeclaa runtii nin wanaagsan buu ahaa uu soo dhaweeyo uu caawin jirayo markaasa ana salaada waxaan bilaabay runtii anoo yar xitaa salaadan dagaal baan u bilowno reerka annagu Sacuudiga annagoo degan waxaanu ahayn suufnimo adag bay haysteen reerku marka inaan tukano oo quraanka akhrisanay waxaan oran jiray haddaad quraanka dhammaysid intaanad 40 ka gaadhin uu ku jiiraya dhaqan jira moogta marka quraanka ma waxaan u haysanay cagaf waalanoo intay ku jiidho diinta baad ka baxaysid oo waalanaysid subhanallah markaan masaajidka galay ayaan arkay dhalinyaro quraankii akhriyayso oo iga yaryaro qaariga waaweyno mana waala marka quraankii baan ku dhagay anoo quraanka haysta ta Mareykanka Canada lay diray marka salaada waan iska tukan jiray ninkii baadariga marka si wanaagsan buu soo dhaweeyay inuu xumaynin marka diinta aad haysato waa tii islaamka ma fahmi asagu marka maxaa markii dambana sheekaysan masaxaad Soomaaliya maxaa belief garaysantina aaminsantiin wallahi annagu muslimiin baan oh you go to Makkah saha Makkah wan u tukana qibladii adigu ninkii in kan kaniisada watani imanaysa kana waa ka subaxdii ugu akhriyaya marka waaba de markan ka soo baxo shifti kalaan soo gala kaniisada ku jiraa marka maalin anoo iska fadhiya ayaa galaas macallinkii baa naga habsaamay in waxa yimi baadarigii baa la yidhi daba asagu meeshii macallinka ka galo baadariga marka waxaan u haystaa dawadaad masaajidka imaamka idin halka Nairobi de Sheikh Umar oo kale ama Sheikh kale oo de wadaad baan u haystaa la ixtiraamo mar allaali markuu soo galay wax isleey bilow dariskii bilow ayay yaryarkii ku bilaabeen dagaal diintani waa qalad aabaha iyo hooyaday way isnicibeen isma furi karaan diintana waa kalluunka maxaanu cuni hilibka maxaanu cuni weyna jumcaha adugu wadaadku ma dagaal lagu bilaabo aniga marka diinta aniga bay ugu sii duxaysaa diinta moogta ilaa waatana waji wanaagsan baa leeyahay soo maxin jacayl iyo maxabad iyo soo dhaweys iyo hadiyada iyo ayaa laga dhigay kabaa lay keenaa maryaa lay keenaa Kristo hadiyad baa lay keenaa hooyo abal noqon ana yar baan oo iska miskiina marka saana waniyo diintan ku u dhashay bay ka soo taagan yihiin haadiga kugu sii wada ilaahay marka wuxuu sabab ka dhigay wiigi ku xigay macallimad waxaan dhigi jirtaa waxay tiri qof warooba waxa doontid ka qor door subject waxaad ka hadlaysaa Africa ma waxaad ka hadlaysaa Asia ma waxaad ka hadlaysaa tattoo la ismarmariyo ma waxaad ka hadlaysaa waxa doontid kasaaniri tan maxaad ka hadashaa maanta markaasaan iri saytiri maxaad adigu doonaysaa saan waxaan doonayaa in ka hadlo marka waxaan ana ku sheegay waan ka khajilay yararkii moogta ana ku sheegay waxaan laga baxo
markiina laga baxay ayaan ku I want to speak about Jesus in Islam inuu ciise jiro islaamku diinta islaamka waxay ciise ka qabto ayaan ka hadlayaa you have that very interesting yeah I'm sitting ciise saanid ha that is very interesting bay ku tiri ka soo qor haye jimcihii baan ku dhacay bas magaaladii Toronto aan ku ogaa masaajido annaka masaajidda madihin muslimiin ma joogto ramadaanka waxaanu bariga 9 saacad mootista ayanu soo jiray bas baan masjid hado jaamic mosque baan marka ka daadeg masjidkii bookstore-kii salaad al-asr baanu tukanay ninkii baan daba galay marka bookstore-ka iibinayay albaabkii markuu sidaa u furay halka wajhada waxa soo yaala buug yaro green ah oo mana dhowr boqol oo page ay ku qoran Jesus in Islam ما شاء الله intii aan dal qortay oo aan xuruf ka bedel ka qoyaan baba waan ismaan adiinakii baan soo qaatay waan tiigsaday baskan ku soo dhacay weekend kii oo dhan waxaan ka qoray kuma copy gareeday ilaan kala garan maayo kiimon copy gareey markay gacantii daashay inuu geey markaasay ii yaadhay secretary tamba aaminsantiina soo muslimku caanka ayda marka ii khushu markaasay siisay boqolkiiba bay igu siisay waxa markaa عجيب وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق marka waxaan u fiirsaday wadaadkii baadariga meesha joogay ee subaxdana tukinayay ayaa hablaha yar buu khawsa hablaha yar yar ee markaan anigu am observing waan eegay moogtay markii hore waxa indhaha shacaba iga saaraa oo indhaha wax ninkan waxaan arkay wanaagiisa markii arkay asagiina duulaan baa lagu qaaday diintaydii markaa gabadhani igu yara dhiri gelisay odaygii markaa wax maan arkay odaygii hablihii ku leh hablo marka saddex ayay xidhan karaan mara yaro gaaban oo dee markay foorarsato yani labayk allahuma labayk iyo mara yaroo jilbaha u joogta iyo surwaal odaygu markaa inanta marada tanuurad yar warka weeye moogtay inanta tanuurada jilbaha gaarsiisan ama surwaalka xidhan wuxuu ku yidhahdaa waa samare maxaad iska cadibteen tanuurada gaaban xidhanna nice just buu ku yidhahdaa anuu markaa waxay isu kay qaban waayey dee wadaad masaajid jooga waxaa lagu yaqaanay hablaha xishooda is astura jilbaabka madax ilaa iyo mijin ma jirto had inanta yar xijaabka dhaldhalaaliya waxa inaga daa cadarka makeupka dee wadaad ka dagaalamayaan arki jiray wadaadkana waxa buu leeyahay tabarrujkii qaawinaanta la isqaawinayay taasoo asagu markaa suuq u haya aduu markaasaan soo laabtay saani wallahi diintani ulukaad ilaahay markaas oo iga soo celiyay waxa leeyahay markaa inaan meeshii baanu ka bilownay dacwo oo sheekadii isbedesho marka waa sheeko dheer ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ka soo nagu badbaadi dabcan waxaan rajaynayaa inaan marar kale iyadoo dhameystiran aan bogi doono laakiin waqtiga daraadiis hadda ma noo dhameystiraysa waa sheeko aad cajiib u ah bay noo ahayd sheekh Saciid caalamka in badan oo kamid ah martaa waad safar badan tahay kulay dacwada ma sha Allah heerar badan baad ilaahay ka gaarsiiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin safarkaagan Nairobi aad ku soo gaartay bal nooga warbixin safarkani waa qaraabo qansax hay dad ahal baa iga jooga marka ahalka iyo dad waan fara badan oo wanaagsan oo nisbaranay ayaa jooga walaaladayda marka waa ziyaara dadkii ahalkii iyo dadkii aan isku baranay masaajka dad fara badan oo masaajkan isku baranaa jira aad u fara badan waruntii maxabbata fillah ya ilaaqa walaaltinimo ay naga dhex abuurantay marka kuwaasaan soo noqnoqda marka dabcan marar hola timid hadii calaaqo idan ka dhex abuurantay ramadaantii hore ayay sheekadu ii bilaabantay ramadaantaana waxaan u imi ziyaaro ahliya markii dambana walaaladii sheekh imaamka masaajidka Harlingam sheekh Maxamuud oo kale iyo inama fara badan oo kale oo dacwada ku xidhanayo
أي رجع سامي ما sheekh waxaad martay wadamo badan dad badan Soomaalida way ku jecel yihiin meel bay kugu soo dhaweeyaan أنا بكلم عن شعر meel waxaan joogay iskuulka Dambasko oo Sheekh Cabdirasaaq Jiir uu ka yahay mas'uulka oo aad booqatay oo gabdhihii meesha joogay iyo carruurta dhalinyarada ay aad ku sugi laayeen oo muxaadarooyin cajiib ah ma sha Allah aad u qabatay marka waxaan rabay inaan su'aal ka weydiiyo maadaama North American in badan aad jirtay Carabaha aad jirtay Soomaalidina ay kala firxatay adduunka dacaladiisa bal kala duwanaanshaha u dhaxaysa Soomaalida North America iyo Soomaalidan aad aragtay ama aad ku aragtay Afrika dabcan إن هرت أفريقيا دوابا وإيكينيا ما دويتين تجي إن هرجسان قاري إن رمضان تي هورك بعدي إن مدة قابلنا وان شوقي ما أقول لك طبعا شباب نسوي شوقي إن هرت وحول الحياة شاع وين بعول الحياة dadka jooga Canada iyo North America iyo North Europe runtii waxay haayeen dad in aad iyo aad ugu tiirsan waxaan ay dawladdu bixiso macaawinaad waxa la yiraahdo caydan iyo in ama shubkan iyo wax bisha loogu soo shubo food stamp waxaan Mareykanka food stamp marka Canada waxa la yiraahdo welfare Ingiriis waxa la yiraahdo social service bay ka yiraahdaan in taasa aad dadka wali dadka waaweyn intooda badani runtii waxay kaliftana inay soo saarto generation fara badan oo ayagu hammi dheer oo weyn aan lahayn wali xagga inamada habluhu si wanaagsan bay u socdaan meel badan in waxaan ku arkay marka Kenya oo kale Kenya ka hadli kara Kenya oo kale waxaan ku arkay in dadka jooga wadad in doonina shaqaysta way jiraan dad fara badan oo baahi saaran tahay laakiin dad haragoonaya in haddana dawladda warsanaya ayaa laga yaabaa dadka qurbayna ku badan yihiin halkan laakiin waa qof baahan ama qof ganacsi iyo tijaarad eriyanayo oo dadaalaya marka waxaan arkaa markan labadii isu eegay waxaabad mooda dadkii Kenya xaggan jooga inay runtii naga fiican yihiin ودي هذي ودنكي قاعد كران ودنكي واكن هذي وحيرة يسميستان ميلا فربضان أيجي بقى إسكوف في اللاري حاجة الحاجة الاختراع عرفت هذا الموقت مركي ماشي ده حاجة دي تيم ويكون قص بس صح إن أنكو حق قف قاشوني مشر هذول هذا الشقة ما هي الدولة ده مشارة وقريسة هذي مشارة كذا ما تو عيدا صوشو بس إن هذو عيد دولة ده كذا كبحناسة مركا إنه قفكو يكتو حبكم معها هل كان لكن ده كفاح بالوجرة كفاح فرنتي شرفنا أي كتيرته إن ميل ونكسنا لقى جارة لنا عمرك الدعوة ذا كورم كوا حاجة يكوين إن ده هل كان ويدون فوضى الإسلام وتشوكته شيخ مركا كينيا الله يدين إيجو وهذا الإسلام وتشوكته ساجدادي واميل والبا حجابك واميل والبا نقابك واميل والبا إن أد يا أد أيوة أدكتي إن الأركتيد قبر صومالي حجابة كينيا وأدكتي إن أنا كحاجة شيخ إلهي سبحانه وتعالى إنت سو هذا يوم وياني دي وعرو يرير ولقو أبابيي إن حرية المرأة إن قبر يس حريصه وحجاب كان وياهي قيود يو حركة لقو ساتين يو حرية دي تقدم كيدي هورماريس دي لقى ساتين يو مركا إن أنت أيضا بيسو حيسته إن يس حريصي هذا حتى حجابك حدانا حجاب كان ده جلبابك إيه أسطوران معها إن وجهنا قرفر بدون عن كاسيان دمبابي لكن حجاب دلال أو قرقروح أو ده يرى ما يدرس كل شيء أو إن أنت والله كسورية أي لقيا بقى إن وجه شبيهين إن جلباب ده جلباب القرآن كل شيء أما عبد الله بن عباس وتفسير كل شيء أو كليه معها إن مركز الدين هانتي موضوع نعمة بكترته قرتي نعمة وين قرتي نعم واحد حدا يتعرب أو ذي واحد تري واحد hablaha iyo ragga markaad labadooda laftigood comparison ku sameysay dibadda waxaad tiri hablaha si roon oo wax bartay si kastaba hablahaas wax bartay waxa ayaamahan dambe lagu tuhmaa in ay Soomaalida ka faanayaan oo soo xoogaa aad moodid inay Soomaalida ka faanayaan taasna ay keentay inay ajnabi guursadaanba
marka aad ba ayamahan looga hadlaa in ajnabiga ay gabdhihii Soomaalida aad u guursadeen kuwa saddex wax soo post gareeyeen oo arkayo we don't like farxis ayagoo leh Soomaalida ka wada marka mada tirud horta su'aal ba meesha timaad ya taala oranaysa inamadii waa kun aflix waaye hablihi horta maxay u aflixin in ciladi waxa weeye waa hooyooyinka inamadii waxay u fashilmeen waa hooyooyinkii hablihi waxay u aflixeen waa hooyooyinkii dhaqankeena waxa kamida in la yiraahdo in inanta la ilaaliyo inanka la yiraahdo waa sida meel walba ka soo bixi doona waa nine meel walba ka soo dhici doona iska daay islaamihii taasa ku qufulan inantii markaa way ilaalinaysaa xijaabkeeda yey la socotaa telefoonkeeda maqsinka computerkeeda baaraysaa sariirta furaashka rogaysaa telefoonkeeda baaraysaa inanka waxa leedahay inanka markaa inaga tag iska daaya meel walba ka soo dhici doona odaygii markuu isaado inankii qabo islaantii oo wagar sidata oo dagaal doonaysa ayaa odaygii dabada dhigaysa wada oonsa ama asagaan dhalay ama adiga dabada bacdaan ku dhigi ama si edeblad maqsinka ugu jiri waxa meesha noo jooga rag waaweyn oo 3 jira oo islaantu quraacda iyo qadada iyo cashada u sameeyso sariirtana loo goglo shaqana aan doonaynin iskuul aan ku jirin in kala haynina oo farabadan waxaana odaygiina guriga laga eriyay wuxuu leeyahay anigu markaan inta aan leeka deewaan ku qabayo carruur baynu lahayna kambaynu lahayna asaga maxaa suuriyay inantii laakiin islaamtu way ka daba shaqaysaa inan habluhu ka jilicsan yihiin inamada iskuul bay ka daba tagtaa in jaamacadii bay ka daba tagtaa inantii markaa waa la dhisay maxaa soo baxay marka waxa soo baxay rag tooraro dibi oo halka taagtay goro aad moodid baarqab kala in baarqab wala dhufaanay halka joogo ayuu aad mooda in hablo educated hablo fashil mana way jiraan laakiin waa minority-ga inamo najaxana way jiraan laakiin waa minority-ga hablihii marka way isla han weyn jaamacadii bay ka soo baxeen shaqo wanaagsan bay hayaan way diin bay leeyihiin inamadii laakiin maaha isku level inantii marka maxay arkaysaa mid yaro hindiya mid yaro bakistani mid yaro carabo dee isku darajad ay yihiin ayadii afartii inamada ee masaajidka jooga ee diinta lahaay aflaxayna markiiba waa lala booday inantana ma doonsinay gabadhii labaad nootii saddexaad tii afaraad ay noqoto hatta xitaa ay ayadu raali ka tahay inta badan hablo raali ka yihiin islaama raali ka hayn islaama musiiba oo samaano inta ku soo tabcay ayaad midab ku labeynaya ma jirto marka meeshii clash ba ka yimid habli marka de marra wad canaanan sabaxad leedahay inan Soomaaliyeed baa tahay inamadeenan kan iska guurso iska hay iska dhabdhaba oo iska de halkan inoo hay marra wad u garaabaysaa waxaad leedahay inanti way islahan weyntii way isla dumarkuna waxa caado ah markay meel gaaraan ninka hooseeya ma eegaan ninka hooseeya waa caado dumarka gaal iyo muslim iyo hindi iyo Chinese ha noqdaan Sheikh Mustafa Haruma waa nin xakiima mogta waa ani aad u xakiima marka wuxuu u fiirsaday wuxuu yiri gabadhu buu yiri markay boqorad noqoto ninka maxaa lagu magacaaba dee waa waxba magac male laakiin ninku markuu boqor noqdo waxa la waa queen waa boqoradii maraykanka ninku markuu madaxweyne uu noqdo waa first lady ka waran gabadhii first lady ninka maxaa la oranayaa dee waa dartuurka meesha iska maraya waa nothing gabadhu markay education yeelato hadday dhakhtarnimo gaadho hadday master samayso hadday bachelor qaato nin la mida mooyaane in ninka hooseeya ay wadaanta u tuurtay soo qaado way ku adagtay ninku asagoo PhD haysta ayuu mid ka soo kaxaysan reer miiga tuuladii reerkooda intuu tago kama qasna asaga dumarku marka way adagin inay hoos u noqdaan
تينا وهو human psychology ما هو واحد يعني مشينا كراش بعدها habli marka islaami waxay ku hayaan xakamay ku hayaan society dhinaca kale ka jiidanaysa in ayagi hamigoodii iyo meesha isla taagnaayeen meel laakiin waxa waana inanta Soomaali runtii waxa u fiican horta qofka nabiga sallallahu alayhi wasallam kala cunsuriyo ma kala saaro la kala cunsuriyo ma wanaagsana man ila ataakum kama fi sunan tirmidhi صحيح الألباني وحول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلق قفك الدين تيسا يا أخلاق ديسا أرالكتين وقورية إن الله قورية هبلها وية لكن ماشي وحشرة يعني الرغبة حاجة إن أنت هذا ما ينين صومالي دقور سدو وهذا أفغانيسي وهذا حدو اللي يسكر عود خيره أي صهر فارسان كريان مسوي واحد قف هذه وإن أنت وصل رباحه أرد من الله رأي من أمرتي أنا تقرأني مركا والد كنا مشكلة داسة كل عين مركا ماشي واحد يقول شرا دلما نعم أوكي إن شيخ واحد شرو قربها هذا مثلا experience بدنا وتصامرت هذه اللي فترة واحد شرو إن وجاب وين وده هي generation كيرير على أرضي ذا يقولي بقى ضدك scholars كه شيخ ياش علماء المساجد كا من مرة أنا قاعد شو فاهمين صالح مزاجك وحاك كإمام الشيخ أنا في سومالي كفهمين عرضتنا في سومالي إني محاضرين ويحكوا دقيستان ويحكوا عضكت ما بربام نعم هذا مثلا لما ارتقى ضدك إنجليش كوهضلو صالح أما ذيك أما خالد ياسين أبو أسامة الذهبي ضدك صنع عسى مثلا مزاجك it will be packed وحسمها يا محاك هكذا حدي الشيخ يا سومالي الشيخ وين لو كان أنا دد وين أضيال أني سافر يستان موجي لأن أنا صار شباب ما صورة قلمه marka gaabkaas generationka u dhaxeeya dadka yaryara iyo culimada sidee loo xalin karaa samida kale culimadu laftirkoodu soo ma muuqato ama ma qalmato inay English speakers abuuraan haday tahay see loo abuuraa horta in taad ku dhufatay arab horta taas waa kelmad waa waaqic runtii waana waaqic mariiro oo runtii yara aad u xun oo wada damqaya in مستقبل كنا دوار دلنيرد odayaashan in wali dadkan qurbaha joogan ka hadlayna odayaashan in jooga masaajidada fadhiya iyo islaamani horta diintooda loo baqi maayo diintooda u baqi maysid sax oo dhaxita waxay doonaan ha noqdaan way gahayreen waxbay ku gahayreen waxna way ku weynaadeen marka waa geedka gahayreeyo xita macluumaad ma qalloocin karaso caruurtan curdinka ah biyaha كل بس إذا لدونا الله سمين كرو أيها ضروري إنه مستقبل كودا كتلينه وده ده الصوماليين إن أنا بقول ما أرانا يوم حكوا هذلان إنجليزي لكن وحلي هذي قربها تشوغان ودن كأي تشوغان أفقد أكو هذلان هذي نرويج تشوغان نرويج وين أكو هذلان ويعرضتي أتكدبتي من ودادو ده نرويج بيكو هذلان هذي أي تشوغان إن نيروبي وين سواحلي كو هذلان أما إنجليزي أفلس لفهمي هذي تشوغان ماريكن كي يوروب تكلنا ده إنجليزي وضع تكلاشرته ماشي يقول معها لانوجكي وذات كمان أنت واحد لوجو بهاي إنه سيدو فيسبوك وشقيه سيستم كفيسبوك إني برتان تويتر كإني بس برتان إن أفلام كصعوطة أنا مالي هي فاسق نقاء فيلم قال ما واحد لا هاي واحد جرتاي مك واحد والبو وأكو ديال ما دوغان كرتا أفلامتا حتى إن يربي قلت لك أنا هذا إن parents guide بالد هذا يو عروض يريد يدك وين بافيلينك ويكأريك كران وإن يرد حتى أنت إن preview جا إن دعوتي فكرت كهاي تدبر مجارده وحمرية فنانين عروض يدقيسان ما هي صور دقيسان معها إلا هو حرانتين لكن علمه مركز language إسك بيت بتصارم كتصيام إن يربي هو يري كان إن ير أي هو يدي كان إن كير وحلحلي أنا مركا واحد يوكي يعني إن ده المهم بالورايستو إسلامتي ما أقلا به ما أقلا وحب ما أقلا وحلحلي وحكوا يعني ما تشعل إنه هذا الله إسك كويتو أو إسك حلحلي هيو هل كسو فرسنا هيو يسيو نو بكو جوابي أذوق مركا ولاد
أما كمصلح اجتماعي وين المهن دورت وينو أديك كآمنة إن قرتانا إنه الليفل كحر ليو إن لفهم سنتاي علمي مركا حوين يرود ويديي عين كاسو محل وحنو قاعدي مركا إنه داوضو أفلامتن تيرر موفيز أفلامتن مارتن تدق وحقونا هي دق وحدي لي يو عينكا هورر كنا هورر إلى هذان لحويك وحكى لما قبلني ريسيرش مقسمين يا أفلامتن هورر كيو عينكا يو مقاعدي ما صح في ذي ويحب ما سوسمي يركب الله كان أفلامتي وحو أكتر ردي أفلامتي مقاعدي كإما كصعودك يوهري وحي يردن يركي يرى خرطة وأنا مثين كريوي عنقا يركي مركا أرموه إيشاكتي وحاكم ذا وكو آمني سوى نفسهم بي آمني لبا أرموه بي إيشاكتي مركا وحو يري إن هرتا أنوك وحنا هاي جاي لوطي بانا خنيس بانا يعني سبحان الله إن هي مركا هذا كبودي وسحر يا مرلما وهي تاكلنا إلهي ما بقى من سنين ولا يقول قصب يعني إلهي ما بشروا وحين نقطة مركا لابد تبان حلية دوا بوحن حلية إن لوط النمدة يد خنيس نمدة نسي إلهي جرتان كيسيبان أبارة وحين نقطة مركا إن بلتن حمانتن يا معصيدني إن هكذا بارك إنه لقاه بل أفلامتي اللي بسعلي موضوع مركا وان ديسمس كري تن إلهي تن كلام أفلامتي ما نكون نقد أفلامتي ما نكهد لني أفلامتي مركا وحن قصة الله علي شريست إلهي dadka wax cunaya iyo ma maranaysa inaan meel halkiiban ku xidhnay inankii marka horta markuu 3-4 wiiga dambe ilaahay uu soo aaminay ilaahay uu aaminay toddoba wiikan bacdina wuxuu waniyo waaba ka shakisanahay khaniisnimadani waxaanu inaan ka soo baxo ayaan doonaya ilaahay wuxuu qadiray inankayga dul dhammaan waayo leh waxaan doonaya muddo ka bacdi inaad ii qortid in tazkiyad way waxna bala garanaya jaamaca islaamiya madiina galaya jaamacada madiina galaya ma sha Allah ilaahay taasoo qadar ma sha markii yarka Soomaali buna waa Soomaali marka waxaan uga jeedaa wadaadku marka waliba ku qurbaha jooga dabada jooga shakhsiyaadka iyo taxliil nafsigan ilmahan qurbaha ku soo karay waa inuu ogaada gaabka u dhaxeeya anuu wadaad baan ahay oo halkaas ma sha Allah waan kala furaya waan isu meherinayaa in gartana waan galaya min dhaxalkana waan qaybinaya halkaana duruus waan ka jeedinaya kitaabkan from bayt ila bayt waan dhameynaya waa arin aad u wanaagsan laakiin dhalinyaradii imka day mustaqbalkeeni weey mustaqbalkeeni marka diinu mustaqbalkeeni aynu dambas ka saaro way noo dhamaatay berito waxa kaaga imanaya Yurub iyo maraykan iyo waxaan qaarin ilaahay aaminsaneen qaar luutnimada ku jira oo diin u haysta qaar in hablo ankaas xitaa hablo waanka ayagoo midashaha cabaysa bay wala qaba in la qababa kale anigu in rag waan ka baxo xagga dumarkan oo beeray igu ogaada caadi hablihi marka wixii caadi marka wadaadadani hadii wixii aan diiniyan ku xalin kareen oo ilmihii shakhsiyadiisi iyo wixii aan xalili kareen furfuri kareenin marka mustaqbal muddo bayna ka horeeya sheekh tusaale Minneapolis baan wax badan waxaan la shaqeeyay qaybaha dugsiyada iyo taxfiidyada waliba waxaa jirta in quraanka kaliya ay carruurtu xifdiyaan ayna garanaynin macnihi waa diyaabaysa mar quraanka akhrinay xadda ku istaagaysa laakiin macnihi ma garanayo hadda dabcan inaan la sheekaysana waa sida aad u sheegtay qofka uusan aaminin wuxuu ugu jawaabaa I don't know hadduu wax weydiiyo yaa u dhoo fahmi waayna never mind صح never mind ma rabo inuu ugu cesho because waxa aaminsan inuu waxaan fahmi karin qofkan una ka dhaqaaqa aniga waa la sheekaystaa waxaan u raaxataa Mall of America kuwa badan waxay soo daawadaan in arko waxa jiro gabdho Soomaaliyeed oo Minneapolis degan oo guriga markay ka soo baxayaan jilbaab ku soo baxo kadibna Mall of Eid oo kale Eid hadda soo dhowday jilbaab uga soo bixi doonaan iyo labis qurux badan hoostan waxay ka qaban surwaalo iyo wax noocaas laakarka la gelin doonaa dharkaas kadibna Mall of America maanta waxa lagu wareegayaa qaawani aabihi ma oga meelay jirto hooyadii ma oga meelay jirto laakiin jilbaab baa lagu soo baxay
allahna asturo waxyaalo badan noocaas ah jiro gaabka ka jiro culimada iyo generationka dhexdooda baa ka jira hadana waalidiinta iyo caruurta dhexdooda oo suxuniga tirigiisan iyo waxyaalaha uu suubinayo dhan aysan waalidku fahansaneyn uma sheegi kartid gabadhaas hadda tiraad maanta waa dagaal adiga daalac ku raacay adigu daalac ku raacay waalidiintaas maxaad kula dardaarmi lahayd sadugsiyada sidee ay u fahmi karaan quraankan ay akhrinayaan ciyaalku because hadda marka qaal akadabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman lawidi madha kuntum ta'malun madha kuntum ta'malun hasameynaysin waxay ku jawaabaan mar waqa'a alqawlu alayhim bima dhalamu fahum la yantiqun marka dadaaran macallimiinta dugsiga manhajka islaami ah oo fiican oo qurbaha loogu talagalay sidee loo dejin karaa laftirkiisa kaasoo quraanka xifdintiisii iyo isku keenaysa macnaheedu inuu fahmo iyo macaanka dhadhanka waxaan wareystay wiilal yar yar waxay ii sheegeen waxay dhaheen quraanka la akhrinayo macnihiisana ma naqaano diinta macaankeedana maba dhadhamino culimadina waxay ku egtahay masaajida in badan oo su'aal ka dhacayna wax badan waxaad ku aragtay meelaha in istaagsayn moolkina ma jiro culimo inta soo baxdo tabliiq oo saarayso kuwii tabliiq ahana badankood waa la radiyay wax sabab jira awgood waxyaalaha isu keenbal taan ma galina maanta laakiin in horta quraanku diintu waa 5 qaybood la yara hawl yarayo waa quraanka iyo culumtiisa صح يا عقيدة يا علوم تدا يحكوا سابسنا إلهي يا أسماء وصفاتك يا حديثك يا فقهك يا دس يا تاريخ تميد العلوم تيسي الدرجات قرآنكم مركا ميلو كسي بلاد ما يوحفتك إن قالت إنه سمينا وحوي وحين وحي سنة علمها دو قرآنك حفظي إنه درجات قاري إنه درجات قاري دينتي أيانو هاي سنة حسنا وقرأ وسلان كان علمي قال سلان كان سلم العلم وحبدا وجوه الرئيس وحلو بهاي مركنا علمها لوسي سوسيو سلان حبدا الله بعد يتصدحات يأتى أفراد عنك وحنا مركنا تصدحات يأتى أفراد وحسوق جلسة تفسيرتي عربي دي إن وحيابه يردن أسباب النزول كي ناسخ والمنسوخي دو علوم القرآن كي يردن أي سوق جليا وذا دون وحي أباهيا إن عرفت إن يوارد كبا إن أنت سوقرا لجو كوبينه إن المه أنت سيد اللوس إساتة اللوس ير دريو إن هذا ملك جارو إن وذا ددنا فرنتي إن وذا دول بحسي هذا المه حافظات صوص هارتي واجب كاك ود جدتي حسنا حقيقة ما وسيدا أترد علمه القرآن كي كمثل الحمار يحمل أسفارا وكل عيسى في البيداء سمعت قال مركا شيء كده وعلة ده إن waxaati marka arintii waalidku taa wadaadka ayaa asagana haysata oo way kaga daran yihiin waalidku waxay u haystaan hablahooda inay wada marwooyin ay yihiin inamadana waxay u haystaan inay yihiin inamo wada deynamo doobabo la yaqaano sharaf ilaahayna wuu og yahay dhalinyaradani meeshay maraan iyo meelay ka dhacaan waalidku qudhisu marka سم بكم عمي كتيرايو وحنا مغلي مايو وحنا أركي مايو وحنا ما كهاد ليو هرت أبيها دوها ضوابا أفكار لجو أنتو ضبطن سجابل سجابل ركعية إسلامي هنا مدونيان إن أنتو ضبطن هرت إسلام فربطن ويعني فربطن بونا حسب عشرة لكن قار بطن بقولوا دين وحبك مغلات إن محا نصيحة تي أن وادد السيو كلوي وارد كوا إنه قبل واحد قلت لي جزاها الله خير إن أنت دو واحد دام على إن فيسبوك أكاونت فرابر أنا مد مكاك فرتبيتري سمعت قال that was great تويتر بعدين أكاونت سميست أنا مد مكاك سميست وحول سميست وأنا قرني والله صعدة إن عرورتي مركا والد يو معلم بمسألة ده كاهس وحو علمه وهايس مش ده كاهس وحو علمه وهايستا إن أنا لبضني فهم سنة وسيدا تري هذا مرة محاتري never mind بكون يسكت صاني never mind وأنا كلمة أيجا إنك never mind وحنو هاي سنة أوكي حبك ما تشانس كده أيجا لكن ميل بك قطعلا شد هذا كله never mind أكسونو المهني إنا كأمن سنة بارت إنه كو هايستو إنا تقدم بيسيد أنت أصو generation وحو ليه بقى وهو راي بعض يعني محاسب ده اللي كل بقى ما فهم أيوه مركا never mind وكسروني أساس كوضانية أيجي بقى مركا اللي يريد بقى مفتي سوسو نقضي
ayagiiba cilmiga kala bedesha ayagiiba fataawgiisa siiya ayagiiba isna seexadeeya ayagiiba way waxay u haystaan macallinkan masaajidka jooga iyo waalidku labaduba inay useless yihiin labaduba hadhow way baran doonaan markay balanbaliya bayhoof ay gaadhaan meel fog ka soo noqdaan way garan doonaan laakiin intay hore waxay u haystaan labaduba ay useless ay yihiin waxa loo baahan yahay markaad waalid tahay ilmuhu marbuu ku yahay ilmo مرة وكو ولال مرة وكو صحيح ومراحل ودرجات مركا إن أدوغنا لكو بعدين لك كورتيد أي لو بهاي وأركتد العلمي ميل قاريو هدي مركا أستامك أركتد المحني إنه إن ده كسي سيبان يد وضيقي لوجو تلقى ده مركا حلك وحوي إن أدوغنا صوك حيسد أو ميل أي دين تودو ay diinteedu ay aamin ku noqoto ama noqoto Kenya ama noqoto Soomaaliya meel day u aqal celin karta in la keena caruurti laakiin in la yiraahdo iskuul jaamacad bay ka soo baxaysayo shahaad bay qaadanaysayo hadhow bay shaqaynaysayo raka wax taraysa de waaruna way sameyn doonta min naaxiya dunya laakiin marka aakhiradoodii iyo eegtid mustaqbalkooda way u dhamaatay marka waalidka waxaan leeyahay ilmaha markaad aragtid in intii astaantii ugu horeysay uu iska soo taago diyaarada soo saar أفريقيا كان ميل دين تيسو أي آمن كتاي أما عربة هالنقطة أما إيشي هالنقطة أما هالنقطة فلبين أما ميل دين تو أي حتى مرين قديسة يعني ويس كلامتا إن في إنجليز قف قد دجن إن مثلا تولوين يقف قد دجن إن برمنغهام تسكم معها واي برمنغهام هو وضع مصر وكان مركائية يقول لي ده كل بوا حاجة عن كده ما تنت شيخ الكاس ما تنوع إن شاء الله أنت مركل عنه ولا كل ما إنه أدب أو ما تنتهي وقتك عن سيسي يلا صانه ولي بقى قلب تاعي إن النلا فريسة ما يجزاكم الله خير ما سنتين إن شاء الله